magaalada Muqdisho xaalkeedu waxba ma dooriyo rirriman oo xilli kasta foolan karta. Shacabkuna waa kuwo dareenkaas qaba balse aan haynin xog sugan oo ay ku duulaan tagaan. Marka laga soo tago cabsida iyo dareen ku joognimada magaalada, waxaa jirta in saraakiisha laamaha amnigu xog ku heleen in ururka xagjiriinta ah ee shabaabku doonayaan inay geystaan qaraxyo iyo weeraro isla socda. Inta ilaa iyo hadda la ogaaday, waxaa jirta in gaari la sheegay inay ku buufsan tahay sumadda ciidanka booliiska ay ururka doonayaan inay u adeegsadaan in magaalada ay uga geystaan qaraxyo. Xogtan waxaa si hoose u helay taliska Turkida ee Muqdisho, kuwaasi oo laga soo bilaabo tan iyo 9kii bishan xirtay jid kasta oo gala xarumahooda, si gaar ah safaaradda ay ku leeyihiin Muqdisho, isbitaalada ay maamulaan iyo dugsiga tababarka ciidanka ee iyaga hoostaga kuna yaala dhulka ku dhirirsan xeebta Jasiira. Sida ay inoo sheegeen saraakiil aan qarinay magacyadooda, waxaa sidoo kale xog lagu helay in rag 12 nin ka kooban oo la wariyay inay haystaan dareyska ciidanka qorsheynayaan inay fuliyaan weeraro, balse lama oga goobta iyo macluumaadkooda shakhsiga ah. Arrintan haddaba waxay keentay in ciidanka dowladda si gaar ah nabad sugidda iyo booliisku ay galaan heegan dheer. Waxaa sidoo kale lagu amray saraakiisha inay xog ogaal u noqdaan xaaladan lagana hortago qaraxyada ka hor inta aanay dhicin. Tani oo soo dedejisay in hubin iyo tixraac qoto dheer lagu bilaabo ciidamada dhexdooda. Xilligan xaaladda magaalada Muqdisho oo sida hadda ay tahay aan horay u noqon waa markii ay ugu cabsida badnayd. Dadka ku nool waxay dareemayaan baqdin weyn, waxay tuhunsan yihiin in goor kasta dhici karo qarax aan ka yarayn kii u dambeeyay ee Zobe 2. Tan waxay keentay in laga caago goobaha dadka ku badan yihiin sida hoteelada oo dhalinyaradu waxay fahmeen khatarta amni ee jirta, inkasta oo dhammaantood aanay wada fahmin. Qaarka waxgaradka ay ku baraarugeen dhibaatada soo gaari karta haddii iyaga oo meel dadweynaha ku kulmaan ku jira ay ka dhacdo qarax ama mashaqo kale. Toddobaadkii u dambeeyay waxaa magaalada aad uga safray qof kasta oo heli karay bedel iyo nolol maalmeed ka duwan tii Muqdisho uu ku haystay. Dhalinyaro reer Muqdisho ah oo aad u badan ayaa buux dhaafiyay magaalooyinka Nairobi iyo Addis Ababa, kuwaasi oo in badan oo aan la hadlay mid kasta oo kamid ahi ii sheegay hal arin oo ah cabsi amni. Ciidanka Soomaaliyeed dhankooda dadaal weyn ayay wadaan, waxay duurka ku eryanayaan kooxda sii dabar go'aysa, laakiin waxay xal u laayihiin weerarada qorsheysan iyo qaraxyada, kuwaasi oo ay adag tahay in la joojiyo iyada oo aan wada shaqayn laga helin shacabka Soomaaliyeed. Si kastaba haddii Muqdisho aad ku nooshahay, dabcan cabsi kuma yara, balse dadaal ha yaraysan. Weliba maalmaha xaaladahan cabsiga ah ee jirto, waxaa qof kasta la gudboon inuu gurigiisa iyo goobtiisa shaqada dhaafin oo uu iska ilaawo socod, faajo iyo hotel fadhi oo fadhi ku dirir iyo wax aan dan kuugu jirin aad waqti kulmiso. Dadka kuwoodii buruufta aan xabadu karin waqta ayaa cabsi darteed ilaaladii hore ee u haysteen ku biiriyay tiro ka badan intii hore. Xarumihii dowladda ayaa sidoo kale la dhigay ciidan tiro badan. Macaadalla adiga oo shacab ah, maxaa xal ku ah? Waa inaa kaliya dantaada ogaato oo gurigaaga joogto. Waa sida ay ku talinayaan khubarada dhinaca amniga ah marka la joogo xaaladaha cabsida ay jirto. Waxaan rajaynaynaa in ummadda Soomaaliyeed alle uu ka badbaadiyo dhibaato kasta oo loo maleegayo, col kasta oo qarsoon iyo mid ka muuqdana alle ummadda ka qabto.